Norway ayaa laga diiwaangeliyay tiradii ugu badneed ee maalin keliya ay baabuur soo gaarto burbur iyo dhaawac kadib markii in ka badan 400 oo gaari ay soo gaartay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira burbur iyo shilal kala duwan oo ay gaadiidkan ku dhaceen hal maalin oo keliya, taa oo ka dhigaysa rikoorkii ugu weynaa ee jiilaalkan ama qaboobahan dhaca. Waxaa lagu soo waramayaa in wadooyinka kala duwan ee dalka Norway uu barafka ka da'ay ay simbiriraxyo iyo sidoo kale halis kala duwan ay la kulmayaan darawalada gaadiidka, iyadoo gaadiidka kala duwanna ay la kulmayaan shilal kala duwan kuwa oo dhibaato kala duwan u geysanaya gaadiidkooda. Arrintan ayaa waxaa diiwaan geliyay shirkadda caymiska gaadiidka, taa oo sheegtay in rikoorkan cusub uu yahay kii ugu badnaa ee la diiwaan geliyo maalin keliya oo gaarayo in 400 oo gaadiid oo caymis ku jira uu burbur soo gaaro. Waxa ayna shirkadda caymiska intaa ku daraysaa in ay filayaan tiro intaa ka badan oo kor u dhaafayso maadaama aan guud ahaan ilaa iyo hadda la diiwaan gelin. Maareeyaha isgaarsiinta Bjarne Arne Riise ayaa isaguna ku waramayo in xaaladani ay sababaya qabowga badan ee jira iyo wadooyinka oo simbiriraxyo leh, gaadiidkana ay mararka qaar luminayaan kontaroolka. Waxa uuna sheegay in arrintan ay dhibaatooyin badan ka dhalinayaan, ha yeeshee in 400 oo gaadiid ay maalin keliya dhibaato soo gaarto ay tahay wax aad u badan oo qiyaasta ka baxsan. Waxa uuna intaa ku daray in hadda ay dadka kula talinayaan in ay ka digtoonaadaan safarada macno darrada ah iyo sidoo kale in ay ilaaliyaan masaafada ay gaadiidka isku jirsadaan, isagoo sheegay in ay dadka kula talinayaan in ay taxadur dheeriya muujiyaan. Arrintan ayay shirkadda caymiska waxa ay ku tilmaantay tiradii ugu badneed ee maalin keliya lagu soo wargeliyo oo gaarayso 400 oo gaadiid ah inta la diiwaan geliyay, ha yeeshee tiradu ay intaa ka badan karto maalinta keliya oo ay gaari karto 1000 ama ka badan. Waxayna arrintan u sababayaan cimilada iyo dhibaatooyinka wadooyinka ka jira, iyaga oo gaadiidka iyo darawaladaba kula taliyay in ay taxadur iyo digtooni dheeri ah muujiyaan kana baaqdaan safarada aan loo baahnayn. Arrintan ah in shil iyo sidoo kale burbur uu soo gaaro maalin keliya gaadiid lagu qiyaasayo ilaa iyo 1000 gaari lana hubiyay ilaa iyo 400 oo gaadiid ay ka dhigan tahay dhibaatooyinka xooggan ee uu barafka da'ay ka geysanayo guud ahaan qaaradda Yurub, iyadoo wadamada qaar uu sababayo dhimasho iyo dhaawac kala duwan. Shilalkuna ay yihiin mid aad u sii badanayo iyadoo koronto la'aan baahsanna laga soo sheegayo wadamada qaar. Halka warkakiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayay aniga oo Cabdulaahi Shiine.